halkan waa golaha media fadlan haddii aad ku cusub tahay saar subscribe like la wadaag asxaabtaada kana bixi aragti ku aadan muuqaalka ku soo dhawaada macluumaad cusub oo sugan kuna aadan shabaab oo dib u soo celinaya xeelad hore oo ay qaraxyada uga fulin jireen gudaha Soomaaliya. Saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay al-shabaab dib u soo celiyeen mid kamid ah istiraatiijiyadii ay adeegsan jireen dhowr sano ka hor taas oo ay ku fulin jireen qaraxyada magaalada Muqdisho. Saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay in markii al-shabaab ay u suuragali waysay in ay magaalada Muqdisho soo geliyaan gaadiid qaraxyo iyo sidoo kale ciidamada hubeysan ay bilaabeen in ay dib u soo celiyaan qorshihii ahaa in xafiisyada dawladda iyo xarumaha ciidamada ay geeyaan rag isqarxinaya kuna hubeysan waxyaabaha qarxa. golaha wasiirada baarlamaanka hay'adaha garsoorka iyo xafiisyada hay'adaha ammaanka ayaa lagu wargeliyay in ay iska ilaaliyaan dadka aan la aqoonin xitaa shaqaalaha qaar oo dhici karta in loo adeegsado weerarada al-shabaab ay Muqdisho ka fuliyaan. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in lagu wargeliyay dhammaan mas'uuliyiinta dawladda iyo kuwa ciidamada in ay dib u eegis ku sameeyaan dadka ay ku kalsoonaadeen ee la shaqeeya iyo kuwa ka soo agdhawaan kara xafiisyada muhiimka ah. al-shabaab ayaa sanadihii dambe joojiyay weerarada loo adeegsado qaraxyada qof lagu soo xiray ee gala xafiisyada dawladda sidii dhacday dhowr jeer, waxaana la sheegay in ay hadda dib u soo celiyeen qorshahaas oo ay ku bilaabeen xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar 24 bishii tagtay. horay ayay shabaab qaraxyada sidaan oo kale waxa ay ka fuliyeen guriga wasiirkii arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdishakuur Macalin Xasan ee xukuumadii ra'iisul wasaare Farmaajo oo hadda madaxweyne ah. weerarkii tiyaatarka qaranka oo uu ku sugnaa Cabdiwali Cali Gaas oo xilligaas ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya. weerarkii xarunta gobolka Banaadir ee 24kii dhacay waxaana haweeneedii ugu dambeysay ee maalintii shalay lagu toogtay degmada Baardheere ee gobolka Gado taas oo damacsaneed inay isku qarxiso saldhig ciidamada ay ku leeyihiin degmadaasi.